kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka naga daawanaysaan waa saxan soxo production daawad hadii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqatay channelkan ha ka baqiilin inaad subscribe tirahdid gambalelka aad fulatid si had iyo jeer wararka aan soo dhigno ee degdeg ah ay ku soo gaaraan qodobada aan kugu hayno daawadayaal waxa ka mid noqon doona xog ku aadan sababta Senator Cabdi Qaydiid iyo xildhibaan Nubax Tahliil ay u imaanayaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ciidamada dawladda iyo kuwa janan oo isla saasay xaaf oo jawaab siiyay safiirka Mareykanka qodobadaas iyo wixii kale oo nagu soo kordhaa ayaan daawadayaal ku maqli doontaan intaan warkeena ku guda jirno daawad hadii ay tahay markii kugu horeysay oo aad channelkan soo booqatid fadlan ha ka baqiilin inaad subscribe tirahdid gambalelka aad furatid waa inoo muhiim commentiga leega isku soo noqod wanaagsan daawadayaal Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid iyo xildhibaan Nubax Tahliil ayaa la filayaa inay gaaraan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug si halkaas ay u xaliyaan madaxweynaha Galmudug garabka Gaalkacyo Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo kulamo siyaasadeed ka wada magaalada Gaalkacyo iyadoo khilaaf xoogan uu ka dhex taagan yahay madaxweynaha Galmudug garabka Gaalkacyo Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo waliba sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo maalmo ka hor caasimada Galmudug ee Dusmareeb lagu doortay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaana Senator Cabdi Qaydiid iyo xildhibaan Nubax Tahliil ay si gaar ah ula hadli doonaan madaxweynaha Galmudug waxaana la filayaa inay gaaraan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wararka naga soo gaaraya gobolka Godo ayaa sheegaya in goordhow rasaas laga maqlay gudaha degmada Balad Xaawo ee gobolkaasi israsaaseyntan ayaa timid kadib markii ciidamo taabacsan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ay gudaha u galeen qaybo kamid ah deegaankaasi sidoo kale warar ayaa sheegaya in ciidamadaasi iyo kuwa dawladda ee ku sugan halkaasi ay isku dhaceen isla markaana uu dhex maray iska horimaad kooban ilo deegaanka ah ayaa saxan soxo production u xaqiijiyay in halkaasi hal askari lagu dilay wasiir Janan halka laba askari ay ka dhaawacantay dhanka dawladda dadka nala hadlay ayaa sidoo kale sheegaya in haatan xaaladdu ay degan tahay isla markaana ciidamada Jubbaland ay dib ugu laabteen duleedka degmada Balad Xaawo oo horay ay ugu sugnaayeen halkaas oo haatan laga dareemayo dhaqdhaqaaq xoogan ma jirto ilaa haatan wax soo kala dhex galay ciidamada ku dagaalamay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo madaxweynaha Galmudug garabka Gaalkacyo ayaa war saxaafadeed uga hadlayay xaaladda maamulka Galmudug gaar ahaan warar dhawaan ka soo baxay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya qoraalka ka soo baxay xafiiska Xaaf oo haatan fadhigiisu yahay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu sheegay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamuto oo faragelin uu ku hayo arrimaha Galmudug isla markaana uu taageeray maamulkii lagu dhisay Afgambiga sidoo kale waxa uu sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay in ay qaadato doorka uga aadan Galmudug iyadoo ka shaqeynaysa danta guud ee maamulka Galmudug madaxweyne Xaaf ayaa sidoo kale ugu baaqay dawladda Mareykanka in ay wax ka bedesho siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan maamulka Galmudug isla markaana aysan qaadan go'aankii horay uga soo baxay hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Mareykanka uu noqday dalka u horeeyay ee taageeray doorashadii dhawaan ka dhacday caasimada Galmudug ee Dusmareeb taasi oo lagu doortay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor guud ahaan wanaag intaas daawadayaal hadii ay tahay markii kugu horeysay channelka soo booqatid ka baqiil inaad subscribe tirahdid gambalelkana aad furatid si mar walba wararka u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka ay ku soo gaaraan